بسم الله وإذا سلام دمان خيارتا ميل walba aad joogtaan waa mar kale iyo live sessionskeedii kuwaasoo aan ku bixino cashiro iyo trades ganacsi si looga faa'iidaysto ganacsiyadeena soo socda cashiradeena u dambeeyay waxyaabo badan baynu soo sheer gareynay waxyaabahaasoo kala duwanaa oo ahaa waxyaabaha suuqa lagu soo galo markaad galayso haddii aad forex isticmaasho lafteeda kaaga baahan doona inaad khibraddeeda u lahaato haddii aad forexka qayb kamid ah oo binary and digital options la yiraahdana aad isticmaalayso kaaga baahan doona inaad ka faa'iidaysato suuqa codkaygiin si fiican aad u maqlaysaan baan rajaynayaa waxaan isku dayi doonaa maanta inaynu fahanno simple basics ku saabsan cashirkeenuna maanta wuxuu noqon doonaa maadaamaan hore idinku soo sheegay waxyaabaha loo yaqaano OTM ITM maxaa lahdaa entry point exit point support iyo resistance oo iyaguna hore u jiray sidoo kalena waxaa jiray waxa loo yaqaano maxaan ku rahdaa tradeska markaad galayso basically maxaad u baahan tahay laws iyo ruleska aad u baahanaysaa maxay yihiin si aad trader u noqoto professional ahna ma u baahan tahay inaad 100% guulaysato su-aashaas oo idinka jawaabeynaya deegay qof jira 100% inuu guulaysto ma jiro sidaad arkaysaanba waxaad hore usoo aragteen tradeska ah in maaragtay qofku as a trader muxuu ugu talagalay inuu suuqa la imaado muxuuse inuu kala tagay tahay haddii 10 trade aad gasho inaad la bixi karto maalintii ay possible aad ka dhigto inaad 8 kamid ah 7 kamid ah inaad win ku gasho 3 kamid ah aad use garayso waa policy-ga u yaala business man walbo adduunkan jirayna policy-ga waa policy in isticmaalay tahay inaga maxayna la gudboon maxaynu ku dadaalnaa maxaynan soo ilaashanaynaa waxyaabaha aynu ilaashan doono waxaa kamid ah number 2 waa inaadan meeshan in khamaartay aadan u soo gelin hore aan idinku sheegay inaanu khamaar jirin 80% waxaad ku analyze garanaysaa technical 80% technical baa isticmaalaysaa 5% waxaa isticmaalaysaa fundamental 10% practice iyo waxaad ku celcelinaysaa ku-celcesho badan iyo consistency so consistency waa inaad mar walba ku dadaashaa haddii aadan consistency lahayn suuqana aad ka caajisayso iskaga teg timekaaga iska qaado markaad diyaar u tahay usoo laabo laakiin waa chancena intuu joogo ayaa laga faa'iidaystaa cashirkeena maanta waxaa la yidhahdaa management waxyaabaha u baahan tahay ama waxyaabaha inaad isticmaasho aad u baahan tahay si aad cashirka u fahanto waa first macnaha the perfect start yani waa waqti ugu fiican ee ganacsigan la bilaabo ganacsigan laba si un baa lagu bilaabaa labada si lagu bilaabana waxaa loo yaqaanaa maxanaha tradingkaaga inaad laba qaybood u gasho qaybta koowaad waa chart analysis horaan idinku soo sheegay maxaad analyze garanaysaa waxaad analyze garanaysaa waxa loo yaqaano technically fundamental walow aad technically mostly inaad isticmaasho ay waajib tahay xagga fundamentalkuna uu kaa caawinay suuqa maanta aad kalaysanto ka caawin kari doonin marka binary and digital la yidhahdana ma jiraan fake signals iyo waxyaabaha signal at the moment aad galayso u baahan inaad ka tiriso so waxaasoo dhan si aynu ilaalino waxaynu fahmi doonaa waxa loo yaqaano chart analysis si aad u fahantaan waxaad u baahan doontaa waxa loo yaqaano maxaan ku rahdayay waxa loo yaqaano chart analysis iyo money management iyo chart analysis sidee uga qayb qaataan suuqa waxa uga qayb qaataan suuqa money management iyo chart analysis lacagtaada ood manage garaysa tahay waa qaybta ugu muhiimsan waa kaalinta ugu muhiimsan ee suuqa kaga qayb galayso haddii maanta lacagtaad la soo gasho aad la baxdo ama inaad waxaan jeeda aad trade ku wada gasho aad ugu tala gasho the win meeshan ma jirto waxa weeye business baa lagu soo tala gashay business markaad galayso inaad risk taker noqotahay waa waajib laakiin si intaan risk taker noqon waa inaad ku dadaashaa waxa loo yaqaano money management lacagtaadana aad manage garin kartaa so lacagtaada inaad manage garaysaa waa shay muhiim u ah inaad trade-ka sii wadato sidee baad u bilaabi as a professional markay tahay binary optionska inaad as a professional u gashay laba symbol bay ku xidhan tahay haddii aad good ku tahay ama aad ku wanaagsan tahay waxaa loo yaqaano chart analysiska laakiin inaad money managementka ku xun tahay nope iskaga bax shaqadaadii maaha waa shaqo kale shaqadan haddii aad ku xun tahay waxa loo yaqaano definitely waad khasaaraysaa haddii aad ku
كوفي عنها هي محاول كورا money management لكن chart analysis كا إيو chart analysis كا الدنيا هي وحتسكت دايسها وحلو يقانو iyadana sidoo kale kuma fiicnaan kartid waa isla sidoo kale laakiin hadda ku fiican tahay chart analysis sidoo kale money management ku fiican tahay definitely maanta lacag waxaad kala bixi kartaa $1,000 $2,000 $5,000 adigoo practice sameynaya anigoo real sameynaya 5,000 inaan maalin kala bixo waa wax easy ah maanta idinka waxyaabaha su'aalaha waxaan ka jawaabayaa marka session dhamaado so هل سويت session إن شاء الله لمانيو ثم مركا حيابات شو نسيب سميسو ما أنت وحكا حتى وحلو يقانو محن كولا باي money management كم توياي the perfect amount for حتى deposit ديكتي deposit كأجنا perfect amount كيسوي هاي محن كولا با وحن أمرين قف كشراء يا drawings waxayna drawings ka inaga joojiyo drawings ka aad gacanta ku wadaan screen ka joojiya because of session mandooya marka waxa muhiim ah in la ilaaliyo the perfect deposit amount in la timaado hadii aad dhigatay account kaaga $50 $20 hadii aad dhigatay waxa muhiim ah in $20 ka furto trade haddii aad hal ka mid ah gashay oo ay ma aragtay hal ka mid ah $2 ku gashay ood win garaysay $2 ku taala halka dollar aad ku gashay trade-kaagan ku sii wad halkii profit-kaad ku heshay iyo sentiyadii aad ku heshay ku sii wad intaas ku celceli $20 meel ku taalo waxaad ku shaqaynaysaa ha noqoto profit-ka maanta that's money management lacag marka management-keega lagu weydiiyo kaas baa la yiraahdaa lacag management-keega muxuu yahay ka money management la yiraahdo money management anigu markaan maanta la soo galo $100 baan la soo galaa $10 baan ku bilaabaa $110 baan faa'iidaa $110 wax meesha dhigtaa 10 waan ku galaa 10kaas maanta dhan aan ku faa'iideynaya markuu $18 noqdo 18 ku galaya 18 dana sii kordhaya double buu noqonayaa lacagteedina meel bay taala hadhow toole si aan faa'iido baan sii kala qaybinayaa leeyintani account-kaaga ku jirto kordhiso adigu hadba intaan faa'iido marka loski aan galay waan ka kaban karaa khasaaraha aan galay waan ka kaban karaa hatta lacag baan idin sheegay inaan khasaaray lacag si aan uga soo kabto waxa aan ku dadaalay si aan uga soo kabto $10 baan khasaaray anigoo 460 haysto $164 so maxaan ku jiiday $15 baan geliyay oo lacagteedii baan jibaaray oo $5 ku daray waxa ay soo noqday $15 faa'iido $3 baa dheer $10 ee khasaaray $167 ayaan meesha ku helay so maxay idin sheegay management lacagta aad manage garanaysaa waa shay aad ugu muhiim ah ganacsiga si aad ugu sii wado marka aad galayso waxa kamid ah inaad muhiimka ilaaliso ama muhiimada loo ilaaliyo ganacsiga waxyaabaha kamidka ah waxa loo yaqaanaa inaad money management automatically aad lahaan karto money management kuna wax badan ka caawinaya waxa uu ka caawinaya money management waxa kamid ah in suuqu marka uu dhinac u jeedo uu dhinaca kale uu kugu jeesan karo si aad uga faa'iideysan karto ama suuqa dhinaciisa jihadiisa aad ula socon karto hadda saan idin sheegay waxay ahayd waxa loo yaqaano money management markaan idin sheegay lacagtiina inaad amount-kiina ilaalisaan iyo loss-kiina iyo profit-kiina okay haddii aad markaas hesho laba gool samayso perfect amount waa perfect deposit aad heshay perfect withdrawal amount ma yeelo anigu $100 markaan la imaado $50 gaarsiyo $50 waa la baxay $100 baan hadana ku sii wada $250 markaan gaaro $100 baan la baxaa $150 ma ku reebtaa withdrawal amount-ka mar walba perfect ha ahaado sidoo kale ha ahaato the perfect percentage profit-kaas faa'iidaysaa perfect percentage noqdo 80% markuu ka sareeyo oo lacagta falteeyo wixii ka hooseeya hagelin wixii intaa ka sareeya trade kale aan 80% markuu ka sareeyo ma galaa haddii 80% waan galaa 50% waan galaa laakiin intaa ka hooseeya ma galo because of much inaan faa'iidada aan helayay ay kala dhigmaan okay number 2 waa setting goals because goalkaasi oo ah deal amount-kaaga
haddii aad $100 gashay oo upset limitkaagu yahay multiply karee mar walba intii aad faa'iido ku cesho marketka ku cesho goalska ani maalintii imisa goal ii taalo for example waxa ii yaala waxa loo yaqaano maanta kale waxa xisaabsan haddii aan idiin sheego maanta kale waxay xisaabsan inaan $400 shaqaysto 400 si aan u shaqaysto intaan time haysta waxaan haystaa 5 saacadood 5 saacadood si aan 500 shaqaysto imisa layga baahan yahay waxa layga baahan yahay 5 saacadood si aan timeka aan doonayo ugu shaqeeyo waxa loo yaqaano perfect amount aan doonayo inaan withdrawal ku sameeyo si aan ugu sameeyo lacag badan inaan ku xisaabtamo maahe amountka aan helo un baan la baxaya mar walba profitka aan helo withdraw baan siinaya withdraw markaa siiyo hadhow profit uma sugaya maanta kale aan 500 baa xisaabsan usbuuc ayna saa xisaabsan 5 maalmood inaan ka shaqaysto 5 maalmood oo lagu dhuftay 500 waa 500 that's not bad 5 way iga badanaysaa limitkaan doonayno way ku filnaanaysaa maalin walbana halkeen ka soo bilaabo waxaan ka soo bilaabay inaan $50 maalintii shaqaysto adigoo aad practice wada $50 shaqeed $100 shaqeed laakiin amount perfect ah oo ku shaqaysato xaqiiqadii yeelo waa muhiim marka binary and digital options isticmaalayso sidoo kale waxa loo baahan yahay binary and digital options marka isticmaalayso waxyaabaha loo yaqaano maxaan ku raadayay waxyaabaha loo yaqaano waxaad inaad isticmaasho ay muhiim tahay markaad dooranayso deal expirationskaaga iyo waxyaabaha exit pointskaaga hadduu 60 second yahay hadduu 2 minutes yahay ha dhaco timekaagu ha goonaado higher iyo lower adigaa dooranaya waxa weeye maxay tahay haddaba money management iyo chart analysis waxay tahay money management iyo chart analysis waa important rules maxay yihiin ruleskan waxa weeye waxa loo yaqaanaa great opportunities oo money management rules baa jira ruleska money managementka ku jira waxa loo yaqaanaa waxaan u malaynayaa mid baan soo dhaafsanahay okay money management lacagtaada markaad manage garaynayso waxyaabaha aadka u muhiimka ah waxaa kamid ah ama loo yaqaanaa in aad ma aragteenay samayn karto waxa loo yaqaano risk and reward horaan idinku soo sheegay waxaan idiin soo sheegay risk and reward ay yihiin laba shay oo u muhiim ah ganacsiga marka la wado labada shay oo ah risk and reward mostly risk and reward waxaa loo isticmaalaa risk and reward lacagtaad khasaarayso iyo lacagta aad faa'iidayso sidee baad u isticmaali kartaa sidee baad maaragtay uga faa'iidaysan kartaa risk and reward waxay muhiim u tahay ama ay waajib u tahay inaad aad u ilaalisana ay waajib u tahay maanta lacag baad khasaartay lacagtaad khasaaraysa ma u qalmaysa inaad khasaarto anigu maalintii imisaan khasaaraa anigan ganacsi shaqayn kula hadlayaa maalintii waxa khasaaraa inta dhow $100 laakiinse maxaa faa'iida waxa faa'iida in ka badan 10 laab $100 aan loo isticmaalay sidee baan ku faa'iidaa sideen ku khasaaraa risk and reward baa jira anigoo suuqii ugu talagalay ayaan position kuma mar risk ahaan u galaa position kaas oo aan doonayay inaan degdeg u gaaro ayna tahay wax samis la'aan ay keento mostly laakiinse aan anigu fartay oo khibrad u yeeshay waxaan markaan galayo inaan marka kaalinta ku sii xigtay stagekayga dambe marxaladda aan kasii tallaabaya ay tahay so marxaladdan hadhow ku bedelanaya maxay noqonaysaa adigoo forex trader ah ayaa lacag gashay signal baa lagu soo diray signalkii baa kaa qaldamay waxa ku xigaya waa khasaaro sooran waa inaad khasaarihii ka qaban karto signal kalaa lagu soo diraya so binary optionska adiga inaad ku kalsoonaataa fiican inaad naftaada ku kalsoonaataa fiican signals iyo waxyaabaha opportunitieska ku keenayayna waa 1 minute 2 minutes 3 minutes maalin walba trade baan samayn doonaa live ah adii la gaari doonto adigu ka faa'iidaysan doonaa so let's see waxa la wuri for example day 1 $10 baa $15 u bedeshay okay $10 iyo $15 u bedeshay example haddii $10 aad $100 u bedeshay 8 maalmood that's good 8 maalmood it's not bad
waxaad sidoo kale samaynaysaa $15 baad $22 bedeshay okay $22 baad $30 bedeshay صح 10 maalintii shanaad waxaad 49 u bedeshay 70 that's good maalintii dambe progress aad samaynaysaa maalinta lixaad OTC market ha trade gareyn iska daa adiga OTC marketska ka bax maalinta toddobaad OTC market baa yadna jiray iska daa maalinta sideedaad $73 ee ugu jireen 109 that's a good management waxa loo yaqaano good management waa lacag baa yar lumi waad ku celin haddana si kalaad gali waad ku ceshan waad gaarsiinaysaa you can do it you have to try mar walba waa inaad ku ceshan kartaa so maxaad mar walba ku dadaalaysaa waxa loo yaqaano inaad maalin kasta trade sax ah la bixi karto adigoo isticmaalaya waxyaabaha loo yaqaano money management maxay tahay macnaha waxa weeye ma doonaysaa inaad macnaha money management limitka aad doonayso aad gaarsiiso money management waa muhiim in si aad u gaadho limitka aad doonayso limitka aan doonay maanta waa imisa adigoo cabdiqani aad doonay maanta inaad limit gaadho imisuu yahay maanta aniga waxaan doonaya inaan $800 imisaa la soo galay $100 okay maxaa iga xiga haddaan si waalan u tirigareeyo oo ugu talagalo khasaaraha u bareero maanta anigoo kama walwaliyo khasaare haddaan u bareero laakiin waa $8 galo that's it laakiin maxaa sameeyaa ma sameynayo $8 ma galayo maxaan galayaa $40 baan la soo baxayaa waan galayaa faa'iidadii baan ku ceshanaya ilaa iyo waxay u qaadanaysaa 20 trade na $8 marka aan doonayo inaan kasii badiyana tradeskaas unbaa sii badbadanaya okay ma doonaysaa inaad $118 aad u bedesho baa lagu yidhi number 2 waa the started balance of the day hadduu yahay $21 macnaha uu yahay iyo balance you have reached today oo so far uu yahay khasaare kuma jirtid ama sidoo kale aad ku jirto 133 waa goal waa maalintii heer aad markiiba ma gaarsiinaysid limitka ugu talagashay laakiin waad ka badin kartaa waana ka yaran kartaa laba method oo kaliya jira oo loo isticmaalo managementka offset losses wax la yiraahdo offset lossesku laba method buu leeyahay labada method waxaa loo yaqaanaa method inaad ka ilowday inaad lacag khasaartay haddii aad ka fikirto lacagta hore khasaartay sanayna khasaaro gasho aad baad uga naxaysaa method 2na hal deal wixii oo dhan aad ku kabto isku dadaal laba trade hore aad khasaartay halka trade dambe in si fiican u dadaasho ayaad ugu dadaalaysaa adigoo iska eegaya OTM adigoo iska eegaya entry point-kaaga oo graphic-ah adigoo eegaya waxa loo yaqaano support iyo resistance levels adigoo eegaya trend adigoo eegaya waxa loo yaqaano candle halkuu jeedaa halkuu sababta ku haya jihada iyo signalku sameeya correctly na waxyaabahan aan dhigay inaad ka faa'iidayso ayaa muhiim so maanta haddii aad gasho trade limit ka bilow bal maanta 10,000 baa demogaaga ku jirta 10,000 ka bax 10,000 ka bax $50 oo kamid ah 10,000 maanta inaad isticmaasho isku day $50 isku day inaad maanta hor u wato limit $50 aad gaarsiin karto haddii $50 laga khasaaray ama uu ka khasaaro $50 markaad kala gasho 25 iyo 10 u kal haddii marka ka khasaaro ka bax out you have to get out trade dambe aad ugu soo talagasho haddii kale yaryare tradeskaaga money management samee ku dadaal in managementkaaga marka imaado ama account-kaaga management fiican yeesho for example anigu maanta khasaare haddaan u bareero maxaan odhanayaa lacag baan halkan kala soo baxaya lacagtaan la soo baxay baan halkan la marayaa suuqaan ka analyze garaynayaa suuqan baan odhanayaa buy baan u galay suuqii hoos buu u baxay hadduu hoos kugu baxo maxaad samaynaysaa trade-ka dambe xigaan odhanayaa sell u gal waxaan jeedaa trade-ka dambe xigaan odhanayaa lacagtii ka badan gal lacagtii ka badan maxaad ku galaysaa lacagtii ka badan hal mid unbaad ku gali kartaa halka midaad ku gali kartaa waa in aad lacagtan afford garayn karayso inaad khasaarto ama haddaa khasaaray imika $7 lacagta kale ku cover garaynayna khasaaro ta dambe waan sii travel garaynaya maxaan u travel gareeyay waxaan u travel gareeyay because of faa'iidadan sugayaa ka badan hadda waxaad ogtihiin ama idin sheegay hal trade oo real account ah inaan galay $7 baan galay $8 baa ayaa meesha iigu jirta faa'iido okay $8 sidee baan ula bixi karaa mid baan odhanayaa
withdraw funds baan odhanayaa xaggana ku jiidaya kaarkayga bankiga weli waxaa u furan inaan $1 ku celin karo iyo ka badan laakiin mostly kaarka ma isticmaalo waxaan isticmaalaa anigu hababka loo yaqaano perfect money oo adigu isticmaali doonto adigu waxaad isticmaalaysaa waxa loo yaqaano perfect money advanced cash web money intaba available Neteller Skrill waxaasoo dhan hoostana ku sawiran yihiin waxaan hoosta ku sawiranaya idin sheegayo oo dhan web money Skrill Neteller intaba waa habka lacagaha lagula baxo dad badan baa waxay soo weydiiyeen sidee lacagta loola baxo lacagta marka aad bankigaaga ka saarto bankigaaga waad kusoo celin kartaa intii in leeg laakiin faa'iidada intaa dheer hababkan soo socda ayaad kula bixi kartaa so aniga waxaa ii furan $900 oo kale inaan kula bixi karo kaarkayga so 900 lama baxayo $25 baan faa'iiday daqiiqadii u dambeeyay bilaabay 25kii baan odhanayaa withdraw fund okay wuu withdraw garaynaya okay lacagtii u diray hadda maadaama uu diray wuxuu isoo qorayaa fund send hadhow isoo qori message bank accountigan kayga so maanta keliya waxaan la baxay $50 oo mara 50 kale oo mara 25kan markana iyo lacago hore oo la sii baxay oo kula baxay hababkan performance laakiin kaarkayga inta lagu diray okay so waxaan hadda idinla wadaagayo ama idin sheegayo waxa ka mid ah waxa aan la baxay ama lacagta aan la baxay hadda waxaan la baxay $25 waxaan filayaa videoga intii hore meedaan arkay maadaama oonan gelinin share waxaan halkan lagula bixi karaa hababka loo yaqaano Skrill Neteller iyo web money anigu kaarkayga laakiin kula bixi karaa kaarkaygina waa kan oo haddaan idhi kaarkayga ayaan kula baxay okay withdraw kaarkayga baan gashanayaa $50 oo kale aan gashanayaa wuxuu leeyahay fund send bay soo qori doonaa hadhow tole fundkaasi waa lacago ii soo socda 2 cisho 3 cisho iga maqnaan doonaan baa laga yaabaa 24 saacadood bay maqnaan karaan walow ay saacado iga maqnaato laakiin waqtiga ugu badan ee maqnaan karo waa 9 cisho ugu badnaan waa 9 business days ama banking days okay advanced cash baa isticmaali doontaa perfect money baa isticmaali doontaa web money baa isticmaali doontaa anigu perfect money aan kula baxaa lacag markaan kumaan doolar markaan lacag yar $1 inaan kula baxo laakiin adigu waxaad kula bixi kartaa lacagtii aad marka hore soo gashatay oo keliya ayaad kula bixi kartaa so maqal ma jira asxaabta waxaanan sharaxayna ma la fahmay qoraal baad ii soo qoraysaan si aan u arko okay weli qoraal idinka ma hayo so withdraw funds sida loola baxo horaan iminkaan idiin sheegay hababkan soo socda ayaad kula baxaysaa lacagahaaga hababkan oo loo yaqaano Neteller Skrill maxaan ku raahdaa waxyaabaha loo yaqaano okay lacagta aan hadda shaqeeyay maxay ahayd real bay ahayd miyaa la bixi jiray haddii real ahayn maya lacagta realkaana waa kan xagganay ka caddahay mar walba inaad ku shuban karto ama aad u bedeli karto okay bal market kale ayaan sugayaa marketkan waxaan iska gashanayaa $20 si aan u gashado suuqan sell buy buu socdaa laakiin sell ii gaadha ama signal baan raadsanaya signal haddaan waayo lacagta suuq buy buu socotaa buy maadaama u socoto waa inaan signal raadsadaa suuqa aan kusoo noqdo signal baan raadinayaa signalkaasaan odhanayaa su'aalaha jawaabtooda waan soo wadaa hal signalka signalkaasi inuu buy u socdo suuqaas waan isla aragnaa laakiin ma rabo inaan galo maadaama uu iga sii hor qaaday waxa loo yaqaano safarka ama directionka uu u jeeday suuqu ayuu iga hor qaaday laakiin haddoo kale inaan galo waa available okay loss buu galayaa suuqaasi $20 loss maadaama uu gali karo maxaa adiga kula gudboon money management baa kula gudboon hadda maxaa idiin sheegay inaan lacag la baxay baa idiin sheegay lacagtaan la baxay maxay faa'iido aanan ku xisaabtamayn oo marka horeba aan ugu soo talagalo idinka example ahaan idiin siinayay ayay ahayd marka loss la galayo profitkayga dambe waa inuu diyaar u noqdaa inuu profit zaa'ida ama badan uu ii dhalo si uu igu dhalo suuq kalaan soo furan lacagtii lacag ka badan baa weliba gashanaya yes you have to try mar walba waa inaad ugu soo tala gashaa so adigu maxaa maanta kula gudboon adiga waxa kula gudboon waxa la yiraahdo inaad gali karto $1 $2 $3 inta waa gali kartaa okay so kaa uu los gareeyay so hadda $30 baan galayaa 30 hadduu los gareeyo waxaan usii diyaar garoobayaa suuqan sell buu u badan yahay saan filayo okay
sell buu tegayaa maadaama sell tegayana perfect time uu joogo kan kale USD kan baan kasoo noqonayaa buy buu galay buy baan ku rabay buy buu galay laakiin minute-kii hore halkeen ku analyze garay buy maadaama uu buy ku analyze garayna candle-kaasi sell buu iga noqday sell maadaama uu noqdayna trade-ka ma sii socon karo macnaheedu okay let's try another trade kale aynu galno kan aan galayo recording-ka waxaan kuu sheegayaa meeshan khasaaro xaqiiqda waxa weeye mar walba inaad xaqiiqda taaban karto muhiima qof anigu suuqa mar aan ku kalsoonahay waxaa jirta a million times kor iskaga gali karo haddaan millions haysaan kor geli lahaa walow hoos uu maaragtay suuqa u socdo sababtoo ah kalsoonida ayaa muhiima practice-ka iyo instincts waxa la yidhahdana waa muhiim inaad yeelato dareen suuqani aad ku analyze garan karto ama ku taxliilin karto mid ka faa'iido badan kaas inaan helo ayaan ku dadaalayaa okay 87 buu ila marayaa okay let's see how weli ma arkay signalka markaan arko waan sugayaa anigu the perfect timing baan sugayaa candle-kaasi inuu celcelinayo waa rabitaankan kale okay xaggan iyo option de suuqani wuxuu ku jiraa trendkiisu marka la eego daqiiqadii u dambeeyay buy buu u badnaa saacaddii u dambeysay baan u jeedaa haddana sell buu inuu kaga rabaa okay price-kaas sii diyaarso amount-kaaga oo dhan diyaaraa ku ahaato mar walba maxaa faa'iidaya suuqu weli dhinac uma jeedo saad arkaysaan candlestick-ka socodkiisa ka garan kartaa candlestick inuu markaas degdeg u socdo ayaa fiican horena waxaa idigu soo sheegay marka candle aad isticmaali karto waxa loo yaqaano okay let's see okay kaas buy sell bilaabay sell maadaama uu bilaabay inaan buy u galaan rabaa because of uu iga hortagay hadda inaan buy u galaan rabaa buy maxaan ugu galayaa waxaan ugu galayaa markastoo sell kasoo bilaabmo suuquna uu buy u badnaa wuxuu isku celiyaa buy buu isku celiyaa awooddu isku celinayaa badata sell inuu galo waa macquul laakiinse buy buu ayaan usii galayaa horena waxaan jeclaysanayaa inaad maaragtay markaad sell galayso hadda inuu noqdo waad aragtaa laakiin sell inuu buy ku noqdo ayuu suuqan ku rajo weyn yahay buy maadaama second meesha aan ka galay maadaama oyna daqiiq ahayn waxaa laga yaabaa inuu xaggaas oo kale daqiiq adiga cidhiidhi kugu noqdo laakiin si aanu cidhiidhi kugu noqon waxaad ku dadaalaysaa waxa loo yaqaano position fiican oo ku habboon waan gaadayay maanta dhan laakiin in yar wax yar baa mashquuliyey laakiin waxaad aragtaan inaan soo celiyay lacagtii hore khasaaray iyo $6 oo faa'iida ah saan filayo xisaabta iga khalkhashay $30 iyo $20 waan lose gareeyay markii u dambeysay $30 baan real trade kale oo idinku galay $20 markaan lose gareynayay waxaan ogaa inaan suuqa analyzing ku sameynin so wuxuu ahaa 50-50 so idinkaa idin tusayay marka la lose gareeyay sidee loo cover up gareeyaa laakiin this one waxaan eeganayay suuqa isagoo candle-ku sell bilaabmay sababta aan buy u galay idinku in badan waa isweydiinaysaan binary-gu muxuu isla bedelaya practice-ka idin hayay inaad fahantaan suuqaasi inuu sell bilaabo waabad arkayseen sideebaad baa ugu gashay baad isweydiinaysaan ama su-aasha meesha taala ay noqonaysaa waxaan ugu galay marka uu candle-ku xoog soo dhaadhaco surely wuxuu u noqonayaa buy hadduu kor xoog ugu boodo oo maanta dhanna uu ahaa sell micnaheedu sell buu sii soconayaa suuqu laakiin xaggaasi waa gidaarkii resistance-kiisa so waxaad aragteen hadda $156 inaan gaadhsiiyo oon khasaarahaygii
ka soo kabtay sidaan idiin sheegayo mar walba waxaa muhiim ah inaad practice aad samaysaan haddii aad practice samayn karin ku dadaal inaad horta mar walba practice samayso haddii aadan practice samayn karin way kugu adkaanaysaa inaad suuqa kasii qayb qaadato lacagahan aan idinku tusaya aniga maanta waa real inaan luus gareeyo inaan wigareeyana aniga macne ima samaynayso sababtoo lacagtan maalin kasta la imaato suuqa way ka badan tahay inta waxaana rajaynayaa inaad si fiican u fahantay sessionka live recordingkuna intaasuu ku egyahay su'aalo ayaan ka jawaabayaa so markaste telegram link baan soo raacinaya youtube-ka telegramka kaga soo biir cidda ku cusub youtube-kayga ala socota sidoo kalena subscribe si videoska dambe aad u ogaato kuwii horena soo daawo haddii aadan waxba ka fahmin cashirka maanta waa muhiim inaad kuwii hore soo daawato live tradekeygii iyo sidoo kale recordingkeyguna intaasuu ku egyahay loss iyo profit inuu jirin waa idiin sheegay sida loss iyo profit looga soo kabtona waa idiin sheegay so ku dadaala mar walba inaad videoskaygan ku ceshataan insha allah waa idin salaamaya inta igala socota youtube-ka waxaanan bilaabi doonaa su'aalo inaan ka joogo